بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية اللي وانا شرفت له ما أنتم حموتها إنها يقضوا الحساسي وأهم ثلاثة قول كبنادر السحر كبرية مدن قدومية مقالة مقدشة يقول كبنادر وعاصمة الجمهورية الفدرالية الصومالية وحين كملت هاي سديدي تون قول الصومالي مركان كدودي إنه iyadoo dareemo kale ay jirin iyadoo aan la siyaasadeynaynin iyadoo aan la aadinayn waxyaabaha qaarkood baa la rabaa si sax ah in looga doodo xildhibaanada sharafta lehna araadooda kala duwan isku ixtiraamaan wixii shuruucda dalka u taalan ay ku doodaan si wax fiican oo mustaqbalka loo aayo oo dalkii dadka badbaadiya meesha uga soo baxaan haddii laakiin la siyaasadeeyo أما فريمة ماشان لقد دري إيش كان نقطة واحد معنا أيام لسه بجرت مثلا قدومية قول كبنادر وحكم ذي هاي سديدي تونك قول الصومالية قلب كتضبي إلا قلب كأفرتني استقالة الدستور كعليا هاي صوماليا وسديدي تونك قول وأنا فضل أروح ونسور راعيا لو قول يوحي كبدر مثلا هذا قلب كلا يهضليو وحقيقة هي قلب كتضواتني اللوات الدستور كجمهورية الفدرالية الصومالية وحنو قيب سني هاي قلب اسكو حقيقة فسراد الدستور كوقبيع أويس قفل وسوق عليا يوسقف سرتا لكن سوحيا وعد وقيحنا يجرى صوماليا مركو الرئيسين نوغانو وحاول مدن قدومية وفدرال سيستم فدرال سيستم بركو يهينا ويكلا تهي سياوها قولة عادية السياوة استيديو لو وجه هذا وحاد سن استيديو سنتر سيدي سوى حايشة استيد بايشة دولة قولات أيا سنتر يشة قلب كالسقالات الجمهور دستور كجمهورية الفدرالية الصومالية waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waana inay yeelataa maqaam gaar ah waxaana lagu soo saarayaa dib u eegista dastuurka waxaana ka wada qaraar ka soo wada saaraya ama go'aan ka soo wada saaraya labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan u malaynayaa inay qodobadaas iska cadcad yihiin oo wax bannaanka yaa leeyihiin waxaa marka su'aal in la isweydiiyo u baahan muqdisho ma caasimad ba ma gobol ba ma state ba intaas markii la qeexo ayaa la aadi karaa meesha kale la aadi karo doodaha qaarkood oo ragga saaxiibada ee meesha ka sheegayeen laguma qiimeeyo waddanka markuu federaal yahay system markuu yahay aqal sarena laga hadlayo population لغو مقيمة أقل سر وحلقو قيمة مثلات جو state كلو قيمة population كوحلقو قيمة كراس تقولها شعب كلو قيمة وهاركيسا وحلي كلام مقدشوا هذا كله شيء لو 10 مليون تصالحان أو حروا لو مليون تصالحان هذا كله شيء لو مليون تصالحان هذا كله شيء أول ده ولما وفد بالعادة يعني أول حين تودق ما يكون كونتاي ودق بدي لده كرسي وحيالنا يا كونتون كنا عض هي waxaa laga yaabaa inay muqdisho yeelato 20 dhowr kursi oo golo shacab inay yeelato laakiin aqal sare marka laga hadlayo waa matalaad state weeyaan matalaad state waxaa lagu saleeyaa oo tiro isla go'an lagu saleeyaa waxaan qabaa mudane gudoomiye laba arrimood inay meesha yaalaan midda koowaad anoo ixtiraamaya sharaf iyo karaamo u hayo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir xuquuqdooda dastuuriga inay helaan ay tahay إن مثلاً أكهر رئيسه مقامك جوال كإن مال صار مقدشة معاصمة با مدولة جوالات با مجول عاصمة سكون حجرام معاصمة جونيا با إمر كرمال صار مركي لا صاروا وحصوب حياة وحياة يلنا سمركز تطبقون وصاحب بدي وأنا احترامه يوم وأهد الدولة يا هذا كراس طول جولها شعب كا وحياة يلنا استديك له لح كرسي كليه يا جولها شعب كي يلا جول كبنادر كراستooda waxay jiraan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo meelahaas geystay haddana ma keenayaan kuraastooda
in laga codeeyo magaalada muqdisho oo codeeyaan waxaa loo baahan yahay in la iswaafajiyo waxyaabo badan oo aan la siyaasadeynin fariimo meesha laga dirnay noqon mudane guddoomiye dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu leeyahay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 18 gobol waxaana lagu saleynayaa aqalka sare oo 54 gobol ee Soomaaliya haddii 18 gobol ee Soomaaliya intii dastuur baa la furayaa la dhihi lahaa waxaan ku laabanaynaa 18 gobol ee Soomaaliya in dib loogu laabto wixii ka khaldamay 54 meesha laga soo hadday dadka bursi qaarteen 18 gobol in laga soo celiyo 18 gobol in lagu celiyo gobolka Banaadir markaas waxay helaysaa 18 gobol ayaa waxay ku helaysaa matalaad rasmiga ay lahayd waxaan ku saleeyay halaado maas aniga aragtida dhibanaya halaado waxaan ku saleeyay 18 gobol gobolka Banaadir waa gobol kamid ah 18 gobol xuquuqdeeda si rasmi ah ay u helaysaa mudane guddoomiye xildhibaano badan oo waxaan arkayaa dhahaya uma baahno dastuurka in la bedelo tirada waa lagu kordhin karaa mudane guddoomiye xildhibaanada golaha shacabka oo 275 beelo badan oo Soomaaliyeed baa ka maqan 4.5 aan ku jirin haloo kordhiyo iyagana uma baahno dastuur in la furo hala soo qoro qabaa'ilo badan oo aan sheegi karno magacyadooda ayaa jira hebel la dhigi qabaa'iladaas dhigi karo aan ku jirin 4.5 oo bannaanka taagan uma baahno dastuur in lagu qoro haloo soo kordhiyo waxaa meesha u dejinaa annaga ma nihin hay'ad siyaasi ah mudane guddoomiye waxaan nahay hay'ad sharci dejina muqdisho waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga mudane guddoomiye dikareeto uu ku magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo uu leeyahay waa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho sidoo u yeelan karaa matalaad aqal sare waa in marka ugu horeysa statuska muqdisho la dhahaa aniga dadka qawaanahay xuquuq loo sameeyo state in laga dhigo loo ololeeyo maqaam loo sameeyo iyada ay doorato dhaqaalaheeda ay hesho waxbarashada ay hesho siyaasadeeda ay hesho xildhibaanada ay doorato iyada laakiinse in madaxa laga gooyo madax go'an in koofiyad loo geliyo mudane guddoomiye ma soconayso waxaan arkay ku soo gabagabeynayaa annaga waxaan nahay hay'ad sharci dejina hay'ad siyaasadeed ma nihin haddii qodobka la keenayo la leeyahay sharci looma baahno dastuur looma baahno hay'adaha siyaasiga meelaha looga hadlayo waa la yaqaan hal la geeyo siyaas ahaan loogu soo heshiiyo laakiin hadday tahay sharci iyo dastuur wax looga hadlayo haddii aan dhahno toddobaha lagu daro tusaale ahaan ka soo qaad waa in qodobka 72 la bedelo waa qasab haddii ka reer Banaadir been baa u sheegaynaa waxaa meesha ugu sheegayna waa been waxa kama jiraan waa in la dhaho waxa laga dhigay 54 toddoba lagu daray 61 weeyaan qodobka 72 waa la bedelo waa in la dhaho taasna waxay u baahan tahay labada aqal inay wada fadhiyaan tuuteed bay u baahan tahay laakiin hadday tahay siyaasad yar oo fariin ah wax meeshan ka soconaya maaha mudane guddoomiye waddanka xaalad adag buu ku jiraa baarlamaanka janaasadiisa in la tukado degdeg ayaa loo soo dejinay waan mahadsantihiin